Kenya waxaa soo wajahay dhaqaale darno aad u baaxad weyn kaas oo ku sababay culayska siyaasadeed ee ay saartay Soomaaliya. Diyaaradihii duulimaadka caalamiga ahaa ee International Flight wuxuu toos ugu wareegay dhinaca Itoobiya, taasoo dhaqaale darno weyn oo dhinaca duulimaadka ah ku keentay Kenya. Soomaaliya waxaa toddobaadkii ka taga hal diyaarad oo Nairobi gaadha, halka awal maalinkii ay bixi jireen ilaa 3 diyaaradood. ma jiro hay'ado kulamo ku saabsan Soomaaliya ku qabta Nairobi, midaas oo awal lacago aad u badan ka soo gali jireen dowladda Kenya. Taasi hadda waxay fursad siisay Soomaaliya, Uganda iyo Itoobiya oo shirarkii loo soo bedelay. Dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed waxay 82% hoos u dhigeen lacagihii ay gelin jireen waddanka Kenya. intaas oo isbeersaday ayaa Kenya ku kalifay in ay ka tanaasusho sheegashada badda Soomaaliya.